السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan dood noo tahay yaa mudan dalka inuu hogaamiyo 4 sano soo socoto. shakil aan waxa mudan madaxweyne xasan sheekh maxamuud sababtoo ah waxa weeyaan oday Soomaaliyeed aqoonyahan Soomaaliyeed in badan dalka wax ka soo qabtay. madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu soo noqday bara ummadda Soomaaliyeed wuxuu soo noqday aas-aase macad kala duwan hadda ilaa hadda wax looga barto dalka Soomaaliya wuxuu soo noqday madaxweyne Soomaaliyeed in badan wax badan soo qabtay wuxuu soo noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee nidaamka federaalka daadiyay sida inuu sameeyo kale maamul goboleed markii madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa xildhibaanada Soomaaliya waxay qaldameen hal mar waxayna qaldameen halkii mar 8 February 2017 ay naga qaldameen waxaan aaminsanahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud saacadan aduuna si hogaami lahay 4 sano farmaajo soo hogaamiyay 4 sano ka hor 9 sano aduuna soo hogaami lahay saacadan waxaan aaminsanahay lahay Soomaaliya in la jaan qaadi lahayd wadamada caalamka inay noqonaad mid kamid ah wadamada ugu waaweyn misna ugu amniga badan misna ugu dhaqaalaha badan wadamada Afrika marka waxaan aaminsanahay 4 sano soo socota in lagu aamino dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud insha Allah ta'ala sidoo uu noqdo madaxweynihii san hor uga baranaba oday Soomaaliyeed misna mas'uul Soomaaliyeed ee markii lagu soo aamino dalka san u helno nidaam xasiloon amni leh dhaqaale wanaagsan shaqana ay ku helaan dhalinyarada Soomaaliyeed. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Bimaalow Center moolka Bimaalow bari dhaweyd anoo baawur saaran waxaan meel fog ka bidhaansaday boor ay ku qoran tahay Bimaalow Center xog balaaran ma naga siin kartaa moolka Bimaalow oo bulshadu ay bilooyin badan sugayeen ayaa albaabada loo furay ma xarunta ganacsiga ee Bimaalow baashaal ha u malaynaya baana hawaasnimo bilaash maaha hadalkaygu Bimaalow Center waa mool baaxad weyn oo boqolaal shay oo kala nooc ah barta aad ka helayso qiimuhuna boqon goys maaha tayadu waa mid la hubo boqolkiiba boqol bulshadu ay u bogeen wax kasto baahidaadu tahay badeecati u dambeysay beledkeena looga adeegto ha ahaato electronic baakadaysan wax kasto suuq looga baahdo bakeeriba ha u yaraato waa barta aad ka helayso Bimaalow Center moolka Bimaalow waxa uu ka kooban yahay dukaamo casri ah oo qaab heer sare ah loo qaabiyay waxayna ku hayaan alaab tayo sare leh maacuun noocyadeeda kala duwan qalabka electroniga sida qasaaladaha frinjeerka kuukarka ama qalabka cuntada lagu kariyo iyo wax walba oo guriga lagu isticmaalo waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan make up tayadiisu sareyso iyo udug nooc kasta leh dharka dumarka waa labiskii u dambeeyay oo quruxdaada soo saaraya qaybta qalabka ceelasha iyo tubooyinka wax kasta oo aad u baahan tahay waxa aad ka soo dukaamaysan kartaa Bimaalow Mall adiga oo aan la soo kulmin ciriiriga suuqyada kulayl iyo rafaad waqti badanna uusan ka lumin qiimuhuna waa mid aan ku eriyay Bimaalow Center xarunta ganacsiga ee Bimaalow barta uu ku yaalo waa afaafka hore ee suuqa bakaaraha iyo agaarka masjidka barakaysan ee macallin Bimaalow